halkan kama socoto xaflad dhalasho ah mid meher mana ahan mid loo dhigayo arday ka baxday iskuulaadka maadiga ah laakiin waa munaasabad lagu dhiirigelinayo Amran Xasan oo gabar da'yar ah oo 114 suuradood ee Qur'aanka Kariimka ah ka dhamaysatay dugsiga Qur'aanka Kariimka ee Sayd Axmed ibnu Idris ee Muqdisho waalidiin macallimiinta dugsiga arday iyo marti sharaf kale ayaa goobtan ku sugan si ay qayb kaga noqdaan xafladan lagu dhiirigelinayo Amran oo dhamaysatay Qur'aanka Kariimka taas oo lagu qabtay gudaha dugsiga Qur'aanka ay ka baratay waxaa loo dhigay xaflad ay naadir tahay in loo sameeyo ardayda ka baxda dugsiyada Qur'aanka Kariimka sanadahan dambe hilib bariis iyo cunooyin kale ayaa goobta munaasabada la soo dhigay si ardayda dugsiga iyo martida ugu duceeyaan Amran Xasan oo dhamaysatay Qur'aanka Kariimka Maama Xasan Salaad Qaari oo ah ayeeyada gabadha soo barbaarisay ayaa munaasabadan dahab ku guddoonsiisay Amran Xasan oo Qur'aanka Kariimka dhamaysatay waxayna goobta ka jeedisay khudbad dardaaran ah وأيضاً يسير من القرآن كحفظ ابنه من الكبيرين الله يهلهم وهم كلهم يهلقون معلمين قرآن كبرتي أمر حسن أمر يهلهم جينا من شيخ النقطة ويدكس دكتة وعلم راعته ومرع وين القرآن ككله القرآن الإبركيس sidoo kale macallin Cabdulqaadir iyo macallin Cabdiraxmaan oo kamid ah macallimiinta soo baray Amran Xasan Axmed Qur'aanka Kariimka ayaa Amran iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabada kula dardaarmay goobta kun caaliman caalim waxa ku dadaalaysa ina caalimnimo gaarto oo caalim ka aqaan oo ku dadaalay midla ma oo mutacalliman من متعلم هو برهاي إلى تحاطه عالم كي عالم كهو واحد براي واي متعلم كنا مثل براي واي متعلم أهانايو هو برنايو مركبت لي إلى بعد لو يجارو إيك يجارو تعليم وهليني من المهدي إلى الهدي واي برد تكبل يا رب إيه أنت عود جلاي أكو فرنتها برتو هليرا أنا كمان كارد داو وليش أقول جيفها برد ليرا سكين هلا أنا ما هايو ألف لام ميم حرف واحد ألف كأي لام كأي ميم كأي صوته حرف واحد لكن أقول هو ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف حرف لام حرف ميم حرف حرف والبنا ثمن أيال مرنا أنت كسرات ثمن حسنات لام تكحجي ثمن حسنات ميم تكحجي ثمن حسنات dhanka kale qaar ka mid ah ardayda dugsiga Qur'aanka Kariimka ee Sayd Axmed ibnu Idris ahna walaalaha Amran ayaa goobta ugu hambalyeeyay Amran barashada Qur'aanka Kariimka waxayna guddoonsiiyeen hadiyado halkan waxaa aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo xafladda qaadaha qiimaha leh walaashay Amran Xasan Axmed waxaan ugu duceynayaa inay Qur'aanka ka xifdiso waxaan kaloo halkan u mahadcelinayaa ayeeyadii Xasan Salaad Qaari oo ku soo dadaashay anaga nagu soo daraasay xafladda aad ay qurxinaysaa waxna qurxiyo oo la sharfay leeyahay waxaa ugu fiican Qur'aanka Kariimka waxaa si qaas ugu mahadcelinayaa macallimiinta soo bara Qur'aanka sidoo kale maamadeena aan mahadcelinayna oo ku dadaashay Xasan Salaad Qaari ugu dambeynna Amran Xasan oo ay darteed dadkan halkan isugu yimaadeen ayaa si dareen leh kaga mahadcelisay ayeeyadeed hooyo Xasan Salaad Qaari macallimiinteeda iyo martida ka soo qayb gashay munaasabadan بسم الله أنا أمنا حسن أحمد أول مهد الله سبحانه وتعالى يقدرينا لما بقولتوني أفرت القرآن تاني وحاتنا مهد له هو ذي معان حسن سلاد قاري وحنا يسود ميسيس يسود تنيس يودر شيء قرآن تاني بقولتوني أفرت القرآن هو معان هو ذي مع حسن سلاد قاري أدوين فرحة آخر الجنة وحاتنا مهد علينا waxaan waa bareenay aabe Xasan Axmed ayeeyadii raaxo awowey Axmed iyo eedadii macaan waxaan waan bareenaya hooyaday Farxiye Cali Wehdiye hooyaday Mari Cali Wehdiye hooyaday Safiya Cali Wehdiye hooyaday Istar Cali Wehdiye hooyaday Nasra Cali Wehdiye hooyaday Naciima Cali Wehdiye abtiye
ولاد عبد السلام أبتي محمد علي وهلية أبتي فارع علي وهلية أبتي عبد الفتاح علي وهلية.